السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عن وناكسن صاحبيال سو دوادا رمضان مبارك. halkan waa qaaradda Afrika waana qaaradda labaad ee ugu dhulka iyo dadka badan. muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa 10 wadan ee Afrika ugu dhulka iyo dadka yar. wadan walbana waxaan ka bixin doonaa warbixin yar oo kooban insha Allah taala. inta aanan muuqaalka u gudgalin ha ilaawin inaad nagu soo biirto oo ka mid noqotid saaxiibada aan halkan ku saaxiibnay. muuqaalka inoo la garee la wadaag saaxiibadaada qaybta hoose ka mid inuu reeb wixii fikirkaaga ama talo iyo tusaale mahadsanidin. wadanka koowaad waa Seychelles, caasimadiisu waa Victoria. dadka dhulkiisa waxa uu gaarayaa 460 kilomitir square. dadkiisu waxa ay gaarayaan 107,927 qof. waxaa looga hadlaa 3 luqadood: Ingiriis, Faransiis iyo Seychelles Creole. wadanka labaad waa Sao Tome and Principe, caasimadiisu waa Sao Tome. dadka dhulkiisa waxa uu gaarayaa 960 kilomitir square. dadkiisuna waxa ay gaarayaan 231,856 qof. dhanka luqadaha waxay kala yihiin Portuguese, Foro, Angolo, Brisbane. dhanka diimaha 81.1% waa Kirishtaan. wadanka saddexaad waa Comoros, caasimada wadanka waa Moroni. dadka dhulkiisa waxa uu gaarayaa 1,861 kilomitir square. dadkiisa waxay gaarayaan 852,075 qof. dhanka diimaha 98% waa Islaam Sunni ah. dhanka luqadaha waa Comorian, Faransiis iyo Carabi. wadanka afaraad waa Mauritius, caasimada wadanka waa Port Louis. dadka dhulkiisa waxa uu gaarayaa 2,040 kilomitir square. dadkiisa waxay gaarayaan 1,300,557 qof. dhanka diimaha 48% waa Hinduism, 26% waa Roman Catholic, 17% waa Islaam. dhanka luqadaha Ingiriis, Faransiis, Creole, Mauritius. wadanka shanaad waa Cabo Verde, caasimada wadanka waa Praia. dadka dhulku waxa uu gaarayaa 4,033 kilomitir square. dadkiisu waxay gaarayaan 561,900. dhanka diimaha 84.5% waa Roman Catholic. wadanka lixaad waa Gambia, caasimada wadanka waa Banjul. dadka dhulku waxa uu gaarayaa 11,300 kilomitir square. dadkiisu waxay gaarayaan 2,910,000. luqadda rasmiga waa Ingiriis. dhanka diimaha 96.4% waa Islaam. wadanka toddobaad waa Eswatini, caasimada wadanka waa Mbabane. dadka dhulka waxa uu gaarayaa 17,360 kilomitir square. dadkiisu waxa ay gaarayaan 1,216,070 qof. luqadda rasmiga waa Ingiriis. dhanka diimaha 89.3% waa Kirishtaan. wadanka sideedaad waa Djibouti, caasimada wadanka waa Djibouti. dadka dhulku waxa uu gaarayaa 23,200 kilomitir square. dadkiisu waxa ay gaarayaan 1,136,455 qof. dhanka luqadaha Soomaali iyo Anfar. dhanka diimaha 94% waa Islaam, 6% waa Christianity. wadanka sagaalaad waa Rwanda, caasimada wadanka waa Kigali. dadka dhulka waxa uu gaarayaa 26,340 kilomitir square. dadkiisu waxa ay gaarayaan 14,243,033. diinta ugu badan waa Kirishtaan oo gaaraysa 93.6%. luqadaha looga hadlo waa Rwanda, Faransiis, Ingiriis iyo Swahili. wadanka tobanaad waa Burundi, caasimada wadanka waa Bujumbura. dadka dhulku waxa uu gaarayaa 27,830 kilomitir square. dadkiisu waxa ay gaarayaan 13,401,821. dhanka diimaha 67% waa Kirishtaan. dhanka luqadaha Kirundi, Faransiis, Ingiriis. waxaan rajeynayaa muuqaalka inaad wax uun ka faa'iiday. هذا وبالله توفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.